24 saac ee ugu dambeeyay dhacdada la xiriirta markab hubeed oo ay qabteen ciidanka badda ee Puntland ayaa midda ugu xoogan ee taalla Soomaaliya. Xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya hubkan halka uu socday cidda lahayd iyo halka uu hadda ku sugan yahay. Timintan waxaynu ku eegaynaa macluumaad ka la helay war hoosaadka dawladda federaalku ay sheegayso ka cararka sheegashada hubka ee Ankara iyo Muqdisho iyo waliba damacyada qarsoon dadka lagu magacaabo Seawall waxaa laga leeyahay jasiiradda Comoros ee Afrika. waa mid ka mid ah gaadiidka badeed ee loo adeegsado daabulka xamuulka ama sahayda culus. waxaa la aaminsan yahay inaysan ahayn markii koowaad oo hubkeena Soomaaliya. shirkadda markabkan iskale ayaa hore ugu lug yeelatay tahriibinta hubab la geeyay dalal ay colaado ka jiraan oo bariga Afrika. bilo ka hor mid ka mid ah dalalka geeska Afrika ayaa qabatay markab isla shirkaddan ay leedahay oo hub gobolka gelinayay kaasoo laga soo raray Azerbaijan ahaana noocyo lagu farsameeyay Turkiga. ugu dambeyntiina waa la wareegtay Casmaro oo ma gaarin ciddii loo waariday tan oo xiisad culus ilaa hadda gobolka ka abuurtay. dhammaadkii bishii Juun ayuu Baroosinka ka goostay markabkani dekedda magaalada Izmir ee dalka Turkiga wuxuuna ku socday magaalada Muqdisho oo laga sugayay inuu tago 23 bishan. shixnadan inuu ka soo qaaday Turkiga iyo Azerbaijan ka kala yimid wali warar kala duwan ayaa ka soo baxaya. isqarantii markabka ee uu ku soo dhaafay Somaliland ilaa Eritrea Seawall sida ku cad xogta diwaan gashan ee ay qabteen raadarada la socodka dhaqaaqyada gaadiidka badda. markii uu ka soo baxay markabkan kanaalka Suez wuxuu bilaabay inuu dansado dhammaan xogtiisa oo uu qariyo halka uu marayo. wuxuuna ku hakaday dekedda Port Sudan oo ay gacanta ku hayaan ciidamo taageersan Turkiga ee ku sugan Sudan. in hub kale laga dejiyay in kale wali ma kala cadda. ku dhawaanshihiisa biyaha Eritrea dhammaan raadaradiisa ayuu damiyay ilaa uu ka soo gaaray biyaha caalamiga ee ku toosan Djibouti. maalmo hore markii uu soo gaaray biyaha Soomaaliya ayuu haddana hawada ka saaray raadarka isagoo sohodimaha ku aadan biyaha Puntland ku dansaday haddana. balse ugu dambeyntii maalin ka hor ayaa cilo soo wajahday taasoo ku kaliftay inuu ku dhowaado xeebaha degmada Bareeda. weli ma jirto cid si cad u sharaxi karta sababaha raadarka hawada looga saaray saddexda goobood markii uu marayayba, balse waxaa la xaqiijinaya inay ahayd isqarin uu markab ka sameynayay si uga dhunto in dhaqaaqiisa lala socdo. sida ku qabteen ciidanka badda Puntland 2 maalin ka hor markabkan ayaa ku soo dhawaaday degmada Bareeda xeebaheeda. wuxuu doonayay inuu badweynta Hindiya ka galo halkaas, laakiin cilad soo wajahda ayaa kaliftay inuu dhinaca xeebta u dhawaado iyadoo ciidanka badda Puntland oo aagan ka sameeya roodaynta ammaanka maadaama lagu jira dagaalka calmiskaad ay ka shakiyeen. taasna ay keentay in baaris lagu sameeyo ku soo dhawaanshihiisina la ogaadayba inuu hubsido. warar ay sheegayaan ila wareedyo wargalaha ayaa xaqiijinaya inuu isticmaalay markii ay ciidamadu ku dhawaadeen mid ka mid ah calaamada ay leeyihiin dawlad goboleedyada Soomaalida qaarkood, taasoo shakiga ciidanka ammaanka ku sii xoojisay. xagee ku sugan yahay waqtigan? shixnada hubeed ayaa hadda ku wajahan marsada magaalada Boosaaso